Raxmaan Raxiim Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeenimo wanaagsan walaaladii qaaliga isku soo noqod wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba waxaan ii rajeynayaa caafimaad waqti walba inay ahaataba anigu hadda waxay ii tahay habeen waa yacni xilli habeen ah laakiin waa lixdii meelahaas maxaan idhaahdaa saacadda markaa gabadheeda roon ayaan timaha u hagaajinayo maanta beryahan marka waan idinkala yacni raagay fiidiyowyadii timaha oo stylishka ahaa insha Allah markaad waa noo soo celiyay sidaad aragtaanba hablihii ila socon jiray hablo badan ayaa igala socon jiray oo dhihi jireen oo waxay gabdhaha markaa timaha u hagaajisid sidaad u hagaajisid ayaan anagana maalinkaas u hagaajinaa oo isku daynaa jazaakumullah ayaan idin leeyahay sidaad ila socotaan walaaladii qaaliga ah markaa maanta waxaa noo soo celiyay fiidiyogeenii tima hagaajinta ahaa bariyaan xoogaa waa iska mashquulay waa iska ogeedeen marka waan ka yara xoogaa duuduubiska fiidiyowga ayaan ka yara caajisay marka alxamdulilah hadda dib ayaan usoo celiyey marka walaaladii qaaliga idinkana waxaan idinka codsanayaa inaad fiidiyowda noo sheer garaysaan subscribe-na siisaan laagta noogu dadaashaan insha Allah maxaa yeelay fiidiyowga uu ka laag badan yahay waa ka uu dad gaaris badan yahay marka idinkana laagta waxba idinkama dhibeyso marba haddaad channelka soo gashid oo daawatid laag iska sii commentiga waa noo dhiirigelin haddaad noo reebto laftirkiisa sheerta wayna anfacaysaa marka jazaakumullah ayaan idin leeyahay asxaabteyda qaaliga ah marka fiidiyowgaas ayaan noo wadaa insha Allah fiidiyowgana wax yar speed ayaan ku furay waayo wuu igu dheeraaday marka dherarkaas aawadiis ayaan speed ugu furay laakiin hadda waa arki doontaan insha Allah sida u xirxiraayo baartadariigan ayaan idinka tusinayaa insha Allah oo bila speed aan ka dhigi doona hadduu Ilaahay yiraahdo labadan qayb sidan usoo sameeyay ayaan qaybta saddexaadna u sameynayaa waa isku wada mid marka insha Allah hadda qaybta saddexaad ayaad ka arki doontaan hadduu Ilaahay yiraahdo afkaas horena waan dabayaa sidaad aragtaanba laakiin timaha inta kale ee injirada aan kusoo xirxiray maxaa idhaahdaa madamna oo way furfuran yihiin marka hadda sidaad aragtaanba hadda halkaas ayaan jid u bixinayaa jidkaas markaan bixiyo hal xabo injir ayaan soo qaadayaa xabadaas injirka ayaan waxaan rabaa inaan ku xiro insha Allah iyadoon dabin tintii oo aanan galaamin marka sidaas ayaan usoo qabanayaa sidaad aragtaanba waxaan sameynayaa xabada injirka ayaan qabanayaa waan ku xirayaa waan ku dhowr jeer ayaan ku laalaabayaa kumana giijinay oo xoog uguma dhoojinaysid waayo xoogaa hadhow cunugii ama gabadhii madaxii ayuu ka yara qabanayaa marka uma wanaagsan inaa xoog ugu geejisid si yaroo dabacsanaan ah oo tartiib ah ayaan maxaa idhaahdaa ugu xirayaa sidaad aragtaaba kabacdina tintiyo saas ah oo furfuran ayaan haddana xabadii kale bilaabayaa insha Allah sidaad arkaysaanba halkan ayaan dib usoo dhigayaa kadib haddana jid ayaan la baxayaa xabad labaad ayaan jid u bixinayaa kabacdi jid markaan u bixiyo marka xabada labaad laastig kale kuma xiraayo waxaan isku qaban doonaa insha Allah marka waxaan isku qabanayaa xabadii hadda aan laastiga kusoo xiray iyo xabadan cusub ayaan isku keenayaa because hadaan tan laastig ku xiro madaxii wada laastig ayuu gabadhii noqonayaa marka uma rabo inay wada laastig madaxi noqdo oo yacni uu ka qabto marka xabad ayaan ka boodayaa xabad ayaan ku xirayaa marka sidaad arkaysaanba hadda waxaan soo sameynayaa cream yar ayaan marinayaa marka sidaas ayaan isku keenayaa aad u jeedaan waan isku qabanayaa markaan isku qabto ayaan haddana xabad laastig ah ku wada qabanayaa tii aan hadda jidka soo bixiyay iyo tii hore oo furfuran oo laastig aan kusoo xiro inta hore ka furfuran ayaan saas iskugu qabanayaa sidaas ayaan ku wadeynaa insha Allah sidaas ayaan ilaa iyo geeska ku geynaynaa 4 xabo ama 3 jid intee noqon marka 4 jid ilaa 4 jid ayay noqonaysaa insha Allah 4 jid hadduu Ilaahay yiraahdo ayaan ka dhigaynaa sidaad aragtaanba sidaas ayaan ku wadeynaa hadda markaa kii saddexaad ayaan soo qabanayaa insha Allah sidii sideed ayaan ugula qabanayaa sidaad aragtaanba marka hadda jid ayaan usoo bixiyay kii saddexaad waaye ka afraadna wuu noogu xigi doonaa marka 4taas xabo ayaan ka dhigayaa halkii dhinacba 4taas xabo ayuu noqonayaa insha Allah marka hadda kii saddexaad ayaa xireynaa waa si yaroo fudud oo maxaa idhaahdaa ugu samaysan karto haddee yacni gabdhaha yaryar ay iskuulku dhigtaan oo iskuulku aadayaan maxaa idhaahdaa injiradan yaryar unbaa u isticmaalaysaa yacni xanuunna kuma ahan jiif haddii la dhahona way ku jiifsan karaan oo wejigii hadda qaybtan koro waaye qaybta aan
laastiga ku xirxiray qaybtan korona dee qofka biniaadamka xaggaas uma seexdo ama dhinacyada u seexdaa ama dhabarku u seexdaa oo gadaal gadaal ayuu u seexdaa marka waxba kama dhibayso insha allah haddaad saa ugu sameyso iyagana timihiisa yaroo qurux badan ayuu u yahay aynu ku farxayaan ciyaalka markaa u sameysid sidaas maasha allah marka hadda sidaas ayaan ku wadaynaa insha allah bidnillaahi kariim idinkana waxaan idinka codsanayaa sidaan horeba niigu sheegay inaad fiidiyoyada share iyo like iyo comment intaba nasukaaya raacisaan la wadaagtaan walaaladiin kale haddaad channelka ka heshaan noo share gareysaan asxaabtiina kale aad share gareysaan insha allah marka hadda wixii ka dambeeya hadduu ilaah yiraahdo fiideo waan soo dhigi doonaa insha allah waan dadaali doonaa intii tabartay hadday nafta nagu jirto hadduu ilaah yiraahdo marka asxaabteeda qaaliga ah hadda sidaas ayaan kusoo wadayaa oon ku dhameynayaa idinkana ila socda qaybta dambena waad arki doontaan sidaan u sameeyo hadduu ilaah yiraahdo asxaabteeda qaaliga hadda dhinacyada ayaan marayaa labada dhinac maahane dhinacan aan dhaho laba jid ayaan hal jid ayaan u bixiyey laba xaba ayaan ka dhigay sidaad aragtaanba marka si hoos hoos ah ayaan injirka ugu xirayaa iyaga oo hoos ayaan kaga xirayaa dhinaca dhegta usoo dhow xaggeeda sidaad aragtaanba marka iyagana waan sii duubanayaa si aan qaybta dambe u sameysto eena ii dhidhibin marka sidaas ayaan hadda iyagana usoo xiray waan isku soo qabtay saas ayaan usoo duubtay marka qaybta dambe ayaa noo hartay qaybta dambena hadda waxaan marinayaa in yar oo saliid qumba iyo maxaa irahday creamkaas yar ah oo aan mar walba u isticmaalo timaha marka isagana saas ayaan ugu qabanayaa laastig yar ayaan ku qabanayaa taakooyinka yaryar ee caruurta loogu xiro ayaan ugu xirayaa sidaad aragtaanba marka waxaan sameynayaa timihii aan kor qaybta kore ee aan soo hagaajiyey markii hore ayaan haddana hoosta keenayaa oo hal xabo injir iskugu qabanayaa dhinac sidaad aragtaanba maasha allah waa siiro aad iyo aad u simbol ah uuna qurux badan oo style yaroo qurux badan ah maasha allah marka hadda inta dambe ayaan waxaan sameynayaa laba xabo ayaan ka dhigayaa oo u dabayaa sida dabninka caadiga galaanka caadi dabista caadiga ah dabista caadiga ah marka laba xabo ayaan ka dhigay ma badinin oo 4 xabo ilaa 4 xabo 5 xabo waa ka dhigi karaa laakiin labadaas xabo ee roon ayaan rabaa kama dhigin marka hadda waxaan sameynayaa waan dhameystiray sidaad aragtaanba qaybta dambena sidaas ayaan ka dhigay marka hadda si yar oo waxaan u sameynayaa style ah intaas tinta ayaan isku soo qabanayaa waan wareejinayaa maxaan irahdaa waxaan ka dhigayaa si yar oo goolad ah ama o ah ama wareeg ah insha allah kadibna biiman yaryar ayaan ku qabanayaa laba xabo biin oo yar ayaan ku qabanayaa sidaad aragtaanba kabacdina maasha allah sida quruxda badan ee aad aragteen maasha allahda ah ayuu noogu soo baxayaa insha allah marka walaalada qaaliga waxaan idin leeyahay idinkana sidaas leeg waad u sameysan kartaan gabdhaha yaryar gabadhii aan garanaynin yacni sidan way raaci kartaa oo u fududaanaya marka asxaabteeda qaaliga waa kaasaa sidaas ayaan ugu soo sameeyey sidaad aragtaanba maasha allah tabaarakallah haddaad ka heshaan like share comment waana wada arki doonaa waa idin tusinayaa insha allah ka koone marka markaasaa sidaas ayuu kusoo baxeen kamarada ayaan kusoo dhaweynayaa hadda way ka fogeed marka hadda sidaas ayay kusoo baxeen qaybtii hore ee wejiga waad aragtaan maasha allah sidaas yareed dhajiska ah ee quruxda badan ee maasha allahda ah ayay kusoo baxeen aniga gabadheeda hadda xijaab ayaan u xiraa oo iskoolka xijaab ayay ku aadaa laakiin waayadan hadda fasax ayaan ku jirnaa guriga ayaa la iska joogaa marka iyadoo madax qaawan hadda dibadda uma baxdo oo xijaabkeeda ayay xirataa hadda xijaab hadday xiranayso xitaa sidan hadda way ku xiran kartaa laakiin hadda iskuul maba jiro baryahan gurigaan iska joognaa guryaha lagu qaataa casharada marka timaha ayaan u hagaajinayay waa kaasaa maasha allah tabaarakallah
walaaladii qaaliga ah dadka hesha like share comment waa inaga mahadcelinaya waxaan noo balana fiidiyowga xiga waxaan idinkaga tagayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.